daawo qisada saxaabigii sida tooska ah Ilaahay uu la hadlay muxuu sameeyay saxaabigan si uu u mutaysto darajada ah inuu Ilaahay la hadlo Ilaahay subhanahu laysa kamithlihi shay wax la mid ah iyo wax u eg midna ma jiraan like sar muuqaalkan siina share garay qofka khayrka faafiya wuxuu ku ajir yahay qofka sameeyay jiro bashar binu aadam ah oo Ilaahay la hadlay illa waxyi uu u waxyoodo inuu kula hadla maaha nin waraa'i xijaabin aw yursila rasuula ama xijaab gadaashiis inuu kala hadlo ama inuu u soo diro rasuul oo asagu u waxyooday oo khabar ugu soo dhiib waxaan ognahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu nabiyullaahi Muusa alayhi salaam la hadlay waliba xijaabka gadaashiisa uu kala hadlay laakiin saxaabigan jaliilka ah Ilaahay ayaa la hadlay subhanahu wa ta'ala waliba wax xijaab ah asagoon uga aadanayn haddaba waa kee saxaabigan uu Ilaahay xijaab la'aanta la hadlay muxuuna ku dhahay intaas ayaan fiidiyowgan uga hadlaynaa na soo raac muuqaalkana faafi inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala la hadlo bashar ama binu aadam waxay tusinaysaa sharafka عزada sareynta iyo darajada iyo inuu dhammaan dunuubta ka toobad keenay naxariista Ilaahayna uu helay darajada ugu sareysa ayuuna ka gaaray Ilaahay agtiisa waxaana shaki ku jirin inuu helayo amaalmarin iyo nicmadii lagu nagaanayay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu quraanka kariimka ah ku yiri ma kaana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min waraa'i xijaabin aw yursila rasuulan bashar uma sugnaanin inuu Ilaahay la hadlay illa wahyan inuu kula hadla maahane ama inuu xijaabka gadaashiisa kala hadla maahane aw yursila rasuulan ama inuu rasuul u soo dira maahane oo markaas rasuulkaas Ilaahay idankiisa uu ugu waxyooday inta Ilaahay uu doonay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu la hadlaa waa dadka khawaastiisa ah sida ambiyada rususha iyo kuwa uu asagu doortay dhammaantoodna waxa uu kala hadlay xijaabka gadaashiisa ilaa Abdullah ibn Haram saxaabigii ahaa maahane radiyallahu anhu waana shakhsiga kaliya oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo la hadlay marka laga soo tago ambiyada iyo rususha wuxuuna ku shahiiday Abdullah ibn Haram radiyallahu anhu dagaalkii Uhud Abdullah ibn Haram waxa uu rasuulka sallallahu alayhi wa sallam u raacay duulankii Uhud waxaana la socday kun askari oo asxaabta nabiga kamid ah sallallahu alayhi wa sallam dagaalka markii loo sii socday ayuu Abdullah ibn Haram waxa uu u yeeray wiilkiisii Jaabir waxaana u sheegay wiilkiisa in lagu leeyahay dayn oo uu ka gudo waxaana ku dadaalayay Abdullah inuu Ilaahay la kulmo asagoo aan wax dayn ah lagu lahayn waxaana la dhashay Jaabir 9 gabdhood oo walaalihiis ah xilligaasna Jaabir da'diisu waxay ahayd 14 sano oo kaliya wuxuuna kala dardaarmay gabdhaha walaalihiis ah sidoo kalena waxa uu u sheegay inuu noqon doono qofka ugu horeeya oo ku shahiida dagaalkan Uhud markii uu dagaalku bilowdayba Abdullah ibn Haram wuxuu noqday qofka ugu horeeyay oo ku shahiiday waliba gaaladu meydkiisa waa ay suuro xumeeyeen rasuulka ayaa ogaaday inuu shahiiday Abdullah oo ah aabihii Jaabir waxa uu isku dayay inuu arko meydka aabihiis laakiin asxaabtu waa ay u diideen oo waxay ka cabsadeen inuu ka naxo maadaama la suuro xumeeyay laakiin rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa u idmay Jaabir inuu arko aabihiis markii uu marada ka fayday Jaabir waa uu ooyay rasuulka ayaa maqlay sallallahu alayhi wa sallam oo hinta Jaabir rasuulka ayaa yiri sallallahu alayhi wa sallam ooy ama ha ooyin malaa'ikta ayaa kulaylka qoraxda ka hoosinaysay oo ka xigsanaysay ilaa la kor yeelay Jaabir ayaa markaas rasuulka u yimid sallallahu alayhi wa sallam waxa uu ku yiri rasuulka Ilaahayow aabba wuxuu iiga tagay dayn iyo caruur rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa yiri ma kuugu bishaareeyaa wax uu Ilaahay kala kulmay aabbaha Jaabir ayaa yiri ii sheeg rasuulka Ilaahayow rasuulka ayaa yiri sallallahu alayhi wa sallam Ilaahay weligiis qof kala ma hadlin xijaabka gadaashiisa ma ahaan aabbaha waa uu soo nooleeyay Ilaahay xijaab la'aan ayuuna la hadlay waxa uu ku yiri adoonkaygiiyow tamani wixii aad tamaniso ayaan ku siinayaa Abdullah ayaa yiri Ilaahow waad isoo nooleysay si mar kale la ii diido Ilaahay subhanahu ayaa ku yiri markaas hore ayaan u ballan qaaday inaan dunidan loo soo noqonayn micnaha nolosha adduunyada inaan mar labaad loo soo noqonayn aayadan ayuuna Ilaahay subhanahu markaas soo dajiyay wala tahsabanna alladheena qutiluu fi sabilillahi amwaata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaquun ha umalaynina kuwa jidka Ilaahay lagu dilay inay dhinteen bal waa ay nool yihiin Ilaahay agtiisa ayaana lagu irsaaqaya ugu yaraan 3 qof asxaabtaada kamid ah u shargaray muuqaalka